ciidamada ayaa burburiyay xarumo iyo deegaano tiro kalena waa lagu dhaawacay halka miinooyin badan oo loogu talagalay in lagu waxyeeleeyo shacabka ay ciidanku fashiliyeen. howlgal ballaaran oo socday muddo 10 cisho ah ayay ciidamada kala duwan ee Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka ka sameeyeen deegaano dhowr ah oo hoostaga degmada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose. howlgalkaasi oo ay hogaaminayeen taliyaha qaybta 43aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaashaanle sare Nuur Mahad Xasan iyo kusimaha taliyaha ahna taliyaha qaybta booliska gobolka Jubbada Hoose gaashaanle sare Sadiiq Maxamuud Dogor. ciidamada ayaa burburiyay xarumo iyo deegaano ay ku dhuumaaleysanayeen kooxda Al-Shabaab. deegaanada ay ciidamada ka howlgaleen waxaa ka mid ahaa Sanguuni, Muuse Xaaji, Araare, Koban iyo Bangeeni, halkaas oo ay ku xaqiijiyeen amniga tuulooyin badan oo ku yaala hareeraha webiga Jubba. ciidamada ayaa sidoo kale dhaqdhaqaaqyo amni ka sameeyay dhanka kale ee webiga, gaar ahaan deegaanada Jibey, Maleley, Janaalajay iyo Soomarey. intii lagu guda jiray howlgalka waxaa lagu dilay xubno ka tirsan Al-Shabaab, tiro kalena waa lagu dhaawacay halka miinooyin badan oo loogu talagalay in lagu waxyeeleeyo shacabka ay ciidanku fashiliyeen. sidoo kale waxaa dib loo furay qaybo ka mid ah wadooyin xirnaa kadib fatahaadii hore ee webiga Jubba uu sameeyay, waxaana halkaasi laga hirgeliyay fariisimo ciidan cusub oo laga maamuli doono howlgallada socda. ciidanku waxay ku ruqaansadeen deegaano cusub oo kooxda Al-Shabaab horay ugu sugnaayeen. shuruucday dhigteen dadkeenuna midkii dhoohaneen fahmayn dhigtaan ugu sheegi doona midkii kibir uga dhaqaaqana sharcigan kula dhaadan doona. dadka oo dhammaaday oon dhabbaan ceel tegin midkii dadka oo dhammaaday oon dhabbaan ceel tegin midkii inuu ugu dhasha raba.